بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد المسلمين تا سبيشال أمد الصوماليات مقعي وانيقو رمحانتي دكتور كمال داهر عاشور وان كل عسبي شاشدة يعني سوف فريستو إن بدن برنامجي هور الله إيقا برتي لكن ما أنت موضوع كجدي سن وكان حساسي سن أيوم بان ما أنت ربعين عن بالشدة الصوماليات وصوب بندقو رنهانتينا بالشوين تبيلها ها الصوماليات waxa ay yihiin bulsho dalka Soomaaliya taariikh weyn ku leh ha ahaato ha lagu kala fac weynaado haddana waxa aan runtii qirayaa in bulshada Soomaaliya ay tahay bulsho weyn oo taariikh Soomaaliyeed oo dheer leh runtii waxaan maanta u soo fadhiistay in clipkan ama aan u soo duubay ama aan u soo fadhiistay shaashada waa waxaan ugu talagalay oo aniga caado bay run ahaantii waxa aan rabaa inaan iclaamiyo in ay jirto book aan mudaba waday muddo imika 4 sano aba aan first draft kiisi aan waday oo bookgaasina uu ka hadlayo luqadda afka gabooyaha maadaama oo ay tahay luqadani luqad aad u fac weyn oo run ahaantii aad uga fac weyn luqadda afka Soomaaliga waxa aan qastiyay maadaama oo aanay jirin aqoon-yahano hore oo ka soo jeeda bulshooyinka beelaha gabooye marka laga reebo aqoon-yahano ajnabiya oo ku sameeyay cilmi baaris luqadaas waxna ka qoray aqoon-yahanadaas oo isugu jira kuwa Spaanisha kuwa Carabiya kuwa Carab iyo kuwa run ahaantii Amerikaan oo run ahaantii aan si toos ah ula xiriiray institutionada ay ku ururiyaan luqadaha qadiimiga waxa aan markaa aan helay runtii luqadda afka gabooyuhu inay tahay luqad aad u fac weyn sida aan ku helay taariikhda ama aan ku hayo cadeymo badan 1825 in uu nin Spanish uu yimid geeska Afrika kabacdi uu ururinayay luqadaha Afrikaanka luqadii Afrikaanka la ururinayay bay kamid ahayd luqadani waxa ay u qoran tahay runtii in luqadii afka gabooyo qoraal iyo translate Spanish runtii waxa aan go'aansaday maadaama oo bulshooyinka beelaha gabooyo yihiin dad taariikh iyo fac weyn ku leh geeska Afrika ama qaaradda Afrika oo aanay hore u jirin cid aqoon-yahano oo juhdi iyo waqti gelisay inay luqadooda hooyo ama luqadooda ay horumariyaan waxa aan go'aansaday muddo imika laga joogo 5 sano aniga oo ku sugan wadanka Ethiopia in aan qoraal ka sameeyo ama aan qoro book run ahaantiina luqadda afka gabooyaha si aanay luqadaasi u lumin oo ay u noqoto luqad taaba gashay oo horena u jirtay laakiin imika aad moodo Soomaalida qaarkood inay muhmal kaga jiro in luqadaasi ay jirto ay luqadaasi tahay luqad jirtaba inay tahay muhmal kaga jiro marka buugga run ahaantii waxa aan qoray in test book wax la yiraahdo oo aan ku kaydinayay inaanay qoraalkaasi una iga lumin runtiina waxa aan ku daawacay buuggaas oo sample aniga oo markaa diyaarsanayo aan awoodeyda dhaqaalaanay saamaxayn waqtigaana aan arday ku ahaa wadanka Malaysia runtii buuggaas waxa aan qoray waxa aan sameeyay first printing book oo aan ugu talagalay in aan ku kaydiyo oo horta igu diyaar ahaado buuggaasi waa kaas intaas uu leeyahay waxa uu ka kooban yahay 220 xaashiyood run ahaantii waa book aan oran karo buuggaas waa book aniga aan diyaariyay oo aan qoray runtii waxaan ku diyaariyay luqadda afka Soomaaliga oo luqaddu ay ku qoran tahay afkayagii gabooyaha bookganna runtii waxa aan si toos aan ugu kaydiyay aniga oo juhdiyeed waqti badan iga galay inaanay luqadii aan anigu u dhashay ee aan luqadaydii ahayd aanay lumin maadaama aanay jirin aqoon-yahano hore oo igu horeeyay oo ka soo jeeda bulshada gabooye oo luqadoodii intay
tixraac ku sameeyeen ama baadigoob ku sameeyeen intay ururiyeen meel ay dhigeen. marka waxa aan ka codsanayaa dhammaan bulshooyinka beelaha gabooye aqoon-yahanada cid kasta oo aan luuqada ku tuhmayo buuggan waxa aan rabaa inaan badiyo, waxa aan rabaa buuggan inaan qoraalkiisa intan kasoo yaro koobo, waxaan rabaa inaan intan ka yareeyo, waxaan rabaa inaad iga gacan siisaan luuqada afka gabooyaha. runtii halkan 95% xaggan ay ku dhan tahay oo way dhammaystiran tahay, laakiin waxa aan doonaya maadaama oo luuqada beelaha gabooye ay tahay luuqad aada u qadiimi ah in aqoon-yahanka beelaha gabooye iyo cid kasta oo luuqada beelaha gabooye ay fikir ka haysata in ay ila soo xidhiidhaan. runtii buuggan waxaa iga ballan qaaday inay daabacaan oo book quality-giisu wanaagsan yahayna ay ka dhigaan hay-ado Swedish ah oo aan la xidhiidhay. runtii anigana hadda ay ku jira shaqadiisii insha allahu tacaala waxa aan rajaynayaa 2020 in buuggaasi iga dhammaado isaga oo book quality oo aan soona bandhigi doono xaflad weyna u qaban doono. marka waxaan codsanayaa in ay iga soo gacan siiyaan bulshada beelaha gabooye ee dunida daafaheeda ku dhaqan, inta iga da-weyn aniga iyo inta iga yarba, in luuqadaasiba ay tahay luuqad aad haysaan qaarkood marka aad ila soo xidhiidhaan. run ahaantii si gaara waxaan rabaa inaan usoo dhigi doono facebookgayga, pageka aan facebookgayga ku leeyahay, emailkayga aad igala soo xidhiidhi doontaan. waxa aan kale oo bulshooyinka soomaaliyeedna ka codsanaya, waad ogtihiino soomaali badan oo waxaa jirta luuqado aan soomaaliga ahayn leh oo qadiimi ah. runtii waxaa laga yaabaa qaarkood inay luuqadahoodaasi ay qoran yihiin oo ay maaragtay buugaag badan ay ka sameeyeen, laakiin luuqadan gabooyaha aanay jirin cid qortay oo u dhalatay beelaha gabooye oo run ahaantii taariikhda luuqada beelaha gabooye amaba aan kaba dhaadhicinin bulshada beelaha soomaaliyeed. waayo waxa aad arkaysaa soomaalida qaarkood oo aad odhanayso waxa aad jirta luuqad aanu ku hadalno gaar nooca annaga dialect language wax la idhaahdo, way kula murmayaan, waxay ku odhanayaan ma jirto. marka waxaan rabaa iyadiyo qoraala oo fartiyo qoran oo aan run ahaantii anigu waxa aan aada ugu faraxsanahay inaan runtii aada uga dadaalay uguna shaqeeyey buuggaas iyo luuqadaas ururinteeda fartii gabooye iyo luuqadii gabooyeba kuna soo bandhigi doona buuggaas. run ahaantiina waxa aan rabaa bulshada beelaha gabooye aqoon-yahanada iyo ururada bulshada beelaha gabooye in aad idinkuna run ahaantii gacan iga siisaan qaabka buuggaas uu suuro geli lahaa insha allahu tacaala, luuqadaasna u dhaqan geli lahayd. luuqadeenu waa luuqad jirta kana fac weyn luuqada afka soomaaliga. waxa aan doonaya sida aad idinku aad u noqoteen disabir inaanay luuqadiina ay disabir u ahayd, marka waxaan doonayaa inaanay disabir aynaan noqonin, inaynu active garayno luuqadeeni oo luuqadeeni ay noqoto luuqad iskuullada gaarka aynu u leenahay loogu baro caruurteena insha allahu tacaala. arrintaasna waxa aan runtii aan kala tashan doono hay-adaha shaqada ku leh arrintaasi. waana rajaynaya insha allahu tacaala in taariikhda luuqada beelaha gabooye ay noqoto luuqad lagu baro iskuullada gaarka loo leeyahay ee bulshooyinka beelaha gabooye. sidaa daraaddeed waxa aan si gaara iyo si muglaba uga codsanayaa run ahaantii bulshada gabooye ee dunida daafaheeda iyo dunida dacaladeeda ku dhaqan, walaalayaal, inaad haddaynaan inagu luuqadeena iyo dadnimadeena iyo aqoonteena iyo jiritaankeenna inagu aynaan gacanteena kusoo saarin, waxaad ogaataan inaanay soomaali cid ina soo saaraysaa aanay jirin. waxaad ogaataa maanta soomaali waqtigii casrujaahiliga ahaa ee dulmiga iyo fasahaadka iyo cunsuriyadu ay ku baahsanayd inay maanta kasoo yaraanayso. run ahaantii bulshada soomaaliyeedna waxa aan aaminsanahay inay maanta jecel yihiin inayna garab istaagaan, inay ogaadeen qaladaadkii ay inaga galeen inagoo walaalaheen ah. marka waxa aan idinka codsanayaa walaalayaal, waxa aad ogaataan haddaynaan inagu gacanteenna aynaan iyo caqligeenna iyo aynaan inagu juhdigeenna aynaan isku soo saarin, inaynaan cid ina soo saaraysaa jirin. jiritaankaaga adigu haddaad qiri weydana cid jiritaankaaga qiraysaa ma jirto. waad ogtihiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. waxaan aada ugu faraxsanahay in maanta ay jiraan aqoon-yahano aniga igaba aqoon badan
oo bulshaweynta beelaha gabooye kasoo baxa oo kasoo baxay inay jiraan niman aniga iga wanaagsan oo iga fiican laakiin u baahan in la dhiirigeliyo waxaan ogahay anigu inaan noqon karaba ninka ugu yani activity-ga yar bulshada beelaha gabooye haddii la dhiirigeliyo boqolaal gabooye ama boqolaal aqoon-yahan oo dhalinyaro ah oo aniga iga wanaagsan oo dunida daafaheeda disaabiir ku ah waxa aan codsanayaa aqoon-yahanka bulshada beelaha gabooye walaalayaal waxaynu wada ognahay qoomiyad kasta waxa u kaca aqoon-yahan, qoomiyad kasta waxa u kaca nin iyo laba iyo group u kaca. walaalayaal waxaan u baahannahay inaynu samaysano, anigu waxaa laga yaabaa inaad ii aragtaan shaksi isagu magac raadinaya, laakiin no, aniga magac intaan leeyahaana igu filnayd, intaan soo yeeshaana igu filnayd, intaan hadda leeyahaana igu filan. laakiin anigu waxa aan diyaar u ahay inaan member ka noqdo, xubin ka noqdo, ama aan ka noqdo shaksi idinkala mid ah, sidii walaal dadkeena iyo dalkeena iyo luuqadeennaba aynu wax ugu qaban lahayn. waxaynu ognahay walaalo qoomiyadaha adduunka ku nool, qoomiyad aan sidan usoo dhibtoonin way yar tahay. qoomiyad aan dhibaatooyinkan inaga laynagu hayo mid lamida lagu soo haynin way yar tahay. haddana maanta waa laga wada baxay. maxaa lagaga wada baxay? iskaashiga ay iyagu isqabsadeen iyo gacanta ay haystaan iyo hadafkii iyo himiladii ay doonayeen ay ka run sheegaan oo ay gaadheen. marka walaalayaal haddii aan si yaro dhuuban oo tusaale aan idiin soo qaado, waad ogtihiin madowga Mareykanka dhibaatooyinka la soo kulmay, waad ogtihiin in maanta ay madaxweyne madow waddanka Mareykanka soo taliyay. maanta waxaan aaminsanahay fikirka iyo ideolojiyada aqoon-yahanka aniga iga wanaagsanba ku duugan, haddii intaanu isula imano aanu discussion ka samayno oo aanu meesha isla kaashano, in ay helayno fikir taabagala oo dalka Soomaaliya iyo bulshaweynta beelaha gabooyaba in aynu kaga muuqan karno oo aynu wax ugu qaban karno dadkeena iyo dalkeena. waxaan codsanayaa walaalayaal, waxaan codsanayaa runtii bulshada beelaha gabooye waa beelo isu tegay, waa alliance clients waxa la yiraahdo, waa isbahaysi qabiil. run ahaantii ma aha bulsho meel ka soo wada jeeda, ayno waan ogahay, laakiin maadaama oo walaalayaal aynu dad alliance ah oo ama marriage relationship ina dhex maray, dadka waynu iska xignaa, dadka inaga walaala ah, hadday muuse tahay, hadday tumaal tahay, hadday hawlo tahay, hadday wardheero tahay, iyo hadday yibir tahayba, ama annaas ay tahay waree Sheekh Maxamed Xaniif igana laada haddaan yibir idiini intaaba dadka waynu iska xignaa. waxaynu u baahannahay aqoon-yahanadeenu walaalayaal inaynu noqono dad ishaysta. runtii muuse aqoon-yahankiisa waxa ay Soomaalidu afka ugu dhuubaysaa, ma dhibaan aqoon-yahankiisana loo kala jiidaya, tumaal aqoon-yahankiisa oo loo kala ilaalinaya, inaynu walaal isu tagno oo aynu wax noqono ayaa laynaga ilaalinaya. marka walaal inayna taasi dhicin waan idinka codsanayaa. run ahaantii anigu weligayba anigoo intan ka yar waxaan ahaa social worker. bulshaweynta Soomaaliyeed iyo bulshada gobolada waqooyi ama Somaliland ku noolna way ka markhaati tahay, bulshaweynta beelaha gabooyena way ka markhaati tahay. walaalayaal anigu waxa aan ahay shakhsi jecel inay dadkooda iyo dadkiisu ay wax noqdaan. anigu waxaan ku xisaabtamayaa in generationka soo socda in ay anaga maanta ka faa'iideystaan fikirkeena iyo talooyinkeena. waxaan idin leeyahay walaalayaal, buuggaasina waa buugga aan soo bandhigay maanta oo aan iclaaminayo insha Allahu tacaala. qoraalkiisa iyo hawlihiisuna waa ku guda jiraa. waxa aan idinka codsanayaa, oo aan 100% idinka codsanayaa walaalayaal, dadka bulshaweynta beelaha gabooye inaga u maqan, cid uma maqna. aqoon-yahanku haddaanu baraarujin ninka active-ka ah ama firfircoon ee beelaha gabooye ka mid ah ama bulshada gabooye, haddaynan inagu baraarujin walaalo cid baraarujinaysaa ma jirto. waad ogtihiin bulsho kasta iyada deegaankeeda dhisata, dal ahaan iyadaa dhisata, degmooyinkeeda iyadaa dhisata. walaalo waxaad ogtihiin inay contribution sameeyaan. waxa aan muddaba ka fikirayay bulshaweynta beelaha gabooye talow hadday isu tagaan maxay qabsan kari lahaayeen. waxaan aaminsanahay xaafad kasta iyo degmo kasta oo aynu leenahay inaynu ka dhigi karno New York City oo kale, haddii la helo fikir midaysan iyo talo midaysan iyo ragay ka go'an tahay waxqabadka iyo midnimada bulshada beelaha gabooye iyo horumarka bulshada beelaha gabooye. marka waxaan idin leeyahay walaalayaal, in badan baan ku soo noqnoqday,
hadalkan ujeedka hadalkayga iyo barnaamijkaygana wuxuu ahaa oo aan run ahaantii u daarnaa soo bandhigidda buuggaas luuqadda afka gabooye ku qoran oo aan insha allahu tacaala iclaamiyey. marka waxaan idinka codsanayaa haddii allaha weyne awoodda la aqbalo in aad idinkuna gacan igu siisaan. walaalayaal waanan idiin sheegaya waxay soomaalidu ku maahmaahdaa runtii gacmo wada jir bay wax ku qabtaan. gabooyow innaga ayaa daayacnay, soomaaliya inamay daayicina, innagaa isdaayacnay. innagaa qoloba qolo say u sheeganaysay oo qabiil kale dabada u gelinaysay oo ay u gelinaysay ayaa qarannimadii iyo jiritaankeeni uu baaba'ay. heer maanta waxaa la marayaa inay soomaali qabiilooyin inagu aynu u haysanay inaynu ka ilbaxsannahay, kana dadnimo wanaagsannahay, kana soomaalisannahay, inay maanta inay yidhaahdaan annagaadna tihiin. waad og tihiin qabiilo badan baa gabooye sheegta, haba u badnaadaan laba reer. markaan xaqiiqada ka hadlo, reerka Madhibaan in anigu ka soo jeedo oo ah run ahaantii fidnada Soomaali ku jirta, fidnada gabooye ku jirta oo ah qabiil maalin walba qolo sheeganaya, qabiil maalin walba qowliisha war ma khajilaysaan. waxaan idin leeyahay run ahaantii anigu nin Madhibaan aan xaq baan u leeyahay inaan qabiilkaygana ka hadlo. waxaan idin leeyahay kawaan tooba oo magaciina iyo cirdigiina Sheekh Maxamed ha ku ciyaarina. waxaad ogaataan bulshada beelaha gabooye haddaydan idinku magaciina iyo maamuuskiina iyo sharaftiina aydaan kula dhex joogin, inaydaan qabiil kale oo aad midgaan u noqotaan aydaan kula dhex joogin. waan idin leeyahay taas waa iga talo, iga canaan. run ahaantii mana jecli inaad ka xanaaqdaan, ha xanaaqina. anigu waxaan ka mid ahay da'yarta aqoon-yahanka bulshada beelaha Madhibaan, gaar ahaan bulshada beelaha gabooye, gaar ahaanta Madhibaan. waxaan idin leeyahay walaalayaal, ilaahay ha laga boqo oo ilaahay ha loo soo noqdo. oo maanta Soomaalidu waxay tiraahdaa cilmiga idinku yar. maanta waxaynu wada ognahay dadkeena dibadda ku maqan oo qurbaha ku maqan inay dadooda educator maanta ay wada haystaan. dadka internal Soomaaliya jooga inay wada educator ay wada yihiin. waxaan ogahay insha allahu tacaala in waqti dhow inay Soomaaliduna ay iscanaananayaan oo ay ogaanayaan qaladka inaga galeen, ina garab istaagayaan, apologize bixin doonaan. waxa aan doonayaa inaan halkan uga mahad celiyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Cabdi Ilay, oo aan leeyahay Cabdiyow runtii inaan kugu ammaano ma aha, laakiin waxaad gudatay waajib adigoo aad leedahay oo aad diiniyan ah, Soomaalinimo ah oo lagaa sugayay ayaad gudatay. haddana Soomaalidu waxay ku maamaahdaa qofka hadal kelmad wanaagsan ku yidhaahda inaad u mahad celiso. waa aad baan kaaga mahad celinayaa run ahaantii sida mujtamaca deegaanka Ethiopia, deegaanka Soomaalida Ethiopia, bulshooyinka beelaha gabooye sidaad u soo garab istaagtay. waxaan se kugu yara boorinayaa oo aan run ahaantii kugu yara dhiirigelinayaa mudane madaxweyne inay systemka maamulkaaga hay-adaha ugu sarreeyana ay ka muuqdaan. intaasna waan kugu raaligelinaya, aan kugu wargelinaya. waxaan kaloo doonayaa deegaamada ay leeyihiin bulshada beelaha gabooye ee ku dhaqan deegaanada Soomaalida galbeed, waxa aan kaa codsanayaa inaad deegaamadoodaas aad MCH ka dhisto, iskuulo waxbarasho ka dhisto, goobo security-gooda lagu ilaaliyo aad uga dhisto, ciidamo ay iyaga beel ahaan ka soo jeeda deegaamadaana aad u qorto oo ka mid ah iyo booliiska. waayo waad og tahay deegaanka Bariisle, waad og tahay bulshooyinka beelaha gabooyaa degta, waad og tahay Sinta bulshooyinka beelaha gabooyaa degta, waad og tahay deegaamo kale oo aanan run ahaantii magacooda aanan hadda xasuusnayn inay jiraan. waxaan kaa codsanayaa mudane madaxweyne inaad arrintaas adiga iyo shacbigaaga aad garab istaagtaan. intaasaan idinka codsanayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.